waxaa goodhow la filayaa in la bilaabo dhismaha masjidka salaama ee ku yaala xaafadda baarwax. masjidka ayaa noqday mid qadiimi ah. jamiicada masaajidka ayaa waxay go'aansatay in dibdhis xoogan lagu sameeyo masjidka. masaajidka ayaa qaybo ka mid ah habdhulka gashay halka qaybaha kalena burbur xoogan uu ka muuqdo. dadka muxsiniinta ee wax haysta ayaa laga codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka maadaama dadka Soomaaliyeed ay jecel yihiin wanaagga in loogana bartay inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidada. qaar ka mid ah culimada ayaa dadka ku baraarujiyay in aad u wanaagsan tahay in laga qayb qaato dhismaha masaajidka. Sheekh Maxamed Yaasiin Cabdiwaahid, Sheekh Nuur Cali Jimcaale, Sheekh Axmed Maxamuud Yare iyo culimo kale ayaa ku baaqday in dadka muslimiinta ay wax haysta gaar ahaan ganacsatada inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidkan. masaajidkii masjidu salaama la dhihi jiray oo muqdisho ku yaalay wadada Sodonka dhinaceeda ku yiilay oo masaajidii hore oo caamka ahayd ee lagu cibaadaysan jiray kamid ahaa oo waliba burburku markuu dhacay oo dadku meelo badan ka qaxeen meelihii noolaa oo la isugu imaan jiray oo shaacirta diiniga lagu gudanayay kamid ahaa. halkaasaanu joognaa. masaajidka duruuf baa la soo gudboonaatay sida aad muuqaalka ku arki doontaan maadaama waqti dheer uu dhisnaa dhibaato dhinaca burburka ayaa soo gaaray. waa burbursan yahay. waa masaajid u baahan weeye in dhulka la dhigo gabi ahaantiisa kul laga soo bilaabo oo sida hadda uu yahay dayactir iyo wax lamid uusan anfacaynin weeye. waxaa la doonayaa waaga hore dad mu'miniin ayaa dhiseen oo dad u diyaariyeen oo intaa lagu cibaadaysanayay oo ajirku u soconayay. laga yaab dadkaas dadkii ugu horreeyay inay dhinteen oo qabri ku jiraan. thawaabkoodana maanta uu u socdo. maantana waxaa weeye intii nool ee joogto oo dhibaatada masaajidka haysata arkaysa ayaa u dad ah. aad iyo aadna waxaa masaajidka uga muuqato duruuf aad iyo aad u adag oo dadka ku tukanayo halis u ah. masaajidkana markaa inuu sidaas ku sii jiro aan u habboonayn. hadday dad muslimiina masaajidkii ay maalkoodii ay jeclaayeen ay ka waqfeen oo dhulkoodii ay uga tageen masaajid inuu noqdo darteed, qaarna ay dhinteen maanta dadkii wax un ku darsaday wixii dhintay wixii noolba masaajidka intaa lagu tukanayay lagu cibaadaysanayay soo gaarsiiyey. maantana guddiga ay u taagan yihiin masjidka duruuftan inaan lagu fiirsan karin oo in la dumiyo oo dib loo dhiso haddana ay lagama maarmaan ay noqotay. annagana waxaan u soo istaagnay inaan dadka muslimiinta aan la wadaagno oon u sheegno arrintaa muhiimadda diinigoo ay leedahay iyadoo lagu baraarugsan yahay oo qof walba uu ku baraarugsan yahay. masaajiduna marna waxay rabaan dhismo iyo bilaaw. taana marka nebigu sala allahu calayhi wasalam waa amray meelaha xaafadaha hoosaan oo kale weliba oo lagu tukanayo in masaajidda laga dhiso. adduunyadan aad u naqaano qofku booska meeshuu ka gadana aad u daneeyaa. boos meel yaroo xaafadahoo luuqa ku yaalla iyo boos goob ganacsi iyo laamiga ku yaalla uma sinna. waxaana kala duwayaa waxay tahay iyadoo labada boos isla eg waa amarada iyo midhaha uu ka rajaynayo. masjidkana waa nuucaasoo kaleo masaajid xaafad yaroo laaba ku yaalla ay dhici karto subxiga iyo
salaada cisha iyo xoogaa inay ku tukadaan oo iska faaruq yahay intaas badan iyo masaajid ay dhici karto 5 waqti inuu camiran yahay ma sinaa karaan kulliba fadiiladana labada shay ayagoo isku mid ah waxay fadiilada ku kala qaataan sida ay u kala faa'iido badan yihiin una kala waxtar badan yihiin saadkan masjidu salaam wuxuu ku yaalaa meel aad u muhiim ah oo suuqii ganacsiga agtiisa oo laamiga agtiisa ah haddana xaafad ah waqti kasta waa masjid mucammar ah ugu dambeyn ayaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah guddiga masaajidka dhismihiisa loo xilsaaray asaguna tilmaamay in lacag kor dhaafaysa $350,000 Mareykanka ay ku bixaysa dhismaha masaajidka loona baahan yahay in dadka ganacsatada wax haysta ay si degdeg ah uga qayb qaataan waxa uu sheegay inay sameeyeen akoono iyo telefoon lambaro dadka ay ku soo tuuri karaan waxyaabaha ay ugu talagaleen sadaqada jaariyada ah annaga maadaama aan nahay maamulkii masaajidka iyo guddigii masaajidka salaama akoono iyo waxa la sameeyay iyo telefoonno waxayna ka muuqdaan dhabarkayga ayay ka muuqdaan hadda qof walibana awoodiisa ayaa la rabaa Abdiraxmaan Kambala Kalsan TV Muqdisho